Assalaamu calaykum. Caalamkan aynu dul saaranahay waxaa ka jira xumaano aad u tiro badan sida xaasidnimada, khiyaamada, iyo tuuganimada, iyo qaar kaloo aad u fara badan, kuwaasi oo cadhada Ilaahay mutaystay iyo ciqaabkiisaba. Muuqaalkeenan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qisada filimka lagu magacaabo The Village of Hypocrites amba Tuuladii Munaafiqiinta. Filimka Tuuladii Munaafiqiinta waa filim ka waramaya nolosha dhabta ah ee adduunka. Isagoo filimkani ah mid aad u gaaban, ayaa waxa uu ku guuleystay jaa'isadda Oscar sanadkii 1993, isagoo filimkan ahayn filimada kartoonka ee casriga ee sanadadii dambe. Filimkani isagoo ka waramaya dabeecadaha insaanka aan wanaagsanayn sida munaafiqnimada oo ah mawduuca dhabta ah ee filimka. Ka hor intaanan gudagelin muuqaalka, like saar, subscribe saar oo ku soo biir Falaaxtu. Muuqaalku wuxuu ka bilaabmayaa nin beerolaha dhulka qodaya si uu uga beero geed. Kadib waxay kaamiradu u gudbaysaa muuqaal kale oo tuulada dhexdeeda. Tuuladan oo u samaysan qaab wareega. Shakhsi kasta wuxuu isha la raacayaa shakhsiga kale, isagoo eegaya xumaanihiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa. Isagoo oo tiisa aan arkayn, qof kastaana wuxuu dadka hortooda uga muuqdaa inuu yahay qof wanaagsan. Intaasi kadib waxay dhammaan dadku wada eegayaan gabadh shaqaale ah oo ka soo baxaysa albaabka guriga. Markay madaxeeda kor u qaaddo waxay wada helaysaa dhammaan dadkii oo wada dhuuntay. Markay aragto inaanay meesha cidi joogin, ayay xadaysaa geed tufaax ah oo tuulada dhexdeeda ku dhex yaalla, iyadoon ogeyn in dhammaan dadku ay isha ku hayaan oo ay daawanayaan. Intaasi kadib waxaa guriga ka soo baxay ninkii baadariga ahaa, iyadoo ay ka muuqdaan calaamadaha sharafta iyo aqoontu. Laakiin marka uu indhaha dadka ka qarsoomo ayaa wuxuu la soo baxayaa quraarad khamriya, kadibna wuu cabbayaa. Wuxuuna u soo dhaqaaqayaa dhanka xabsiga si uu u eego ninkii maxbuuska ah ee ku xidhnaa xabsiga inuu weli ku xidhan yahay iyo in kale. Intaas kadib waxa uu ku tufayaa candhuuf iyadoo aanay arkayn cidna. Wuxuuna baadarigani leeyahay laba dhaqan oo xunxun oo ah isla weyne iyo munaafiqnimo. Isla markaas maxbuusku wuxuu ahaa mid iska dhigaya inuu hurdo, laakiin waxa hoostiisa ahaa god uu qodayay muddo dheer si uu uga baxsado. Intaas kadib wuxuu muuqaalku u gudbayaa nin daaqadda taagan oo sariirta hoostiisa ku qarinaya dahab aad u tiro badan. Ninkani waxa uu ku matalayaa filimka inuu yahay nin bakhayl ah, laakiin markaas waxa shucaaca dahabka arkayay nin jaarkiisa ah oo waxa uu damcay inuu ka xado dahabka. Intaasi kadib ninkii tuugga ah xaaskiisa ayaa u keenaysa cunto, laakiin tuuggii wuu ku dul tagayaa cuntada ay u keentay xaaskiisu, taasoo ina tusinaysa in xiriirka aan wanaagsanin uu ka dhexeeyo lamaanahan. Waxayna gabadhii ay ka baxaysaa gurigii iyadoo aadaysa beerta. Waxaa isha la raacaysa islaan iyadu dadka had iyo habeenba ilaalisa, iyadoo oo doonaysa inay ogaato qof walba sirtiisa. Waxayna isha la raacaysaa ilaa iyo intay gabadhu soo wareegayso oo ay u soo wareegayso halkaa iyo beerta. Intaasi kadib gabadhu waxay bilaabaysaa in ay midhaha ay ku gurto salladda. Markan filimku wuxuuna tusinayaa in beerolaha iyo gabadha ay wax ka dhexeeyaan, laakiin maadaama oo ay islaantu ilaalinayso, gabadha way xishoonaysaa waxaana u cararaysaa dhanka iyo gurigii. Intaas kadib islaantu qashin ayay ka soo daadinaysaa dhulka, iyadoo ay dhaqankan yahay dhaqan u gaar ah oo caado ah, maalin kastana ay samayso. Kadib muuqaalku wuxuu u gudbayaa kiniisaddii magaalada oo dhan. Marka ay dadku indhaha isku qabtaan ayay wada khushuucsan yihiin heestana ay qaadayaan. Waxaa fursaddaas yar ka faa'iidaysanaya ninkii baadariga ahaa oo khamrigiisii cabbaya.
Muddo yar kadibna dhammaan dadkii oo dhan ayaa guryahoodii ku soo wada laabanaya. Ninkii bakhaylka ahaa ayaa dahabkiisii ku ciyaaraya, welibana ula socdo ninkii tuugga ahaa. Laakiin waqtigaas xaaskiisii ayaa ka soo baxaysa guriga, iyadoo og inay islaantii isha ku hayso, waxayna isku dayaysaa inay khiyaamiso islaanta si aanay u ogaan meeshii ku dambaysay. Waxayna ku guulaysanaysaa inay khiyaamiso islaanta. Ugu dambayn, xaqiiqadii ayaa soo caddaanaysa oo ah inay tahay ninkeedii khiyaameynaysa. Dabadeetna waa isla baxsanayaan labadii qof, iyagoo u socda dhanka iyo kaynta. Kadib mar kale waxaa soo muuqanaya ninkii baadariga ahaa, isagoo qubuuraha dhex warwareegaya. Kadib waa isqarinaya, waxaanu cabbayaa balwaddiisii khamriga ahayd, waanu cabbayaa. Kadib islaanta ayaa cadhoonaysa, iyadoo ka cadhoonaysa sirta dahsoon ee uu ninkani isku qariyay. Sidoo kale tuuladii waa sideedii qof walbaabana xumaantiisa mooyaane ta kale u eegayaa. Sidoo kale ninkii tuugga ahaa wuxuu ku mashquulsan yahay dahabka iyo siduu u soo xadi lahaa. Kadib ninkii tuugga ahaa hareerihiisii ayuu iska indha-indhaynayaa, waxaanu la soo degayaa sallaan, wuuna ku soo degayaa. Waxaanu beegsanayaa qolkii uu ninkan xaasidka ahaa uu joogaa, waanu gelayaa. Ugu dambayn, ninkii bakhaylka wuxuu qarqariyaba dahabkiisii waa laga afrogayaa, waana la soo jiidayaa. Tayaab kalena waxay tahay ninkan bakhaylka isagoo geeri u sii socda ayuu dahabkiisii ka hadheen uu sii urursanayaa. Intii hadhayna ninkii tuugga ahaa ayaa urursanaya. Waxaa ficilkaas ku baraarugaya ninkii iyo naagtii isla baxsaday. Kadib ninkii beerqodaha ahaa ayaa soo cararaya, korayana sallaankii siduu u soo eego waxaan ka soo tuuray. Ninkii beeroolaha ahaa ayaa sallaankii koraya siduu u soo hubiyo dilaaga, balse islaantii ayaa qaylinaysa iyadoo ku tuhumaysa inuu yahay ninkani dilaaga. Dadkii oo dhan ayaana ku soo ururaya, kuna qaadaya dembiga isaga. Balse ninkii tuugga ahaa wuu faraxsan yahay, maadaama uu ra'yigiisii rumeeyey. Intaasi kadib daaqadda ayaanu ka dhacayaa, waxaanu korayaa jiingada sare, isagoo u wareegaya ilaa iyo gurigiisii. Balse ninkii beeroolaha ahaa isagoo dembiga lagu qaaday ayaa sallaankii laga soo tuurayaa, waana la eryanayaa ilaa inta laga qabanayo. Ugu dambayntii waa la soo qabanayaa ninkii beeroolaha ahaa, isagoo ah ninka beriya dembigan. Waxaana lagu soo xidhayaa xabsiga, waxaana lagu soo xidhayaa ninkii hore ugu xidhnaa xabsigan. Ninkan oo ka xun xaqdarrada lagu soo xidhay ayaa wuxuu eegayaa daaqaddii xabsiga, balse islaantii ayaa ku soo tuuraysa xabbad tufaaxa. Qaar kaloo jaarka ayaa iyaguna biyo ku soo shubaya. Kadib ninkii xabsiga ku xidhnaana jeeg buu ka jarayaa. Ninkanna wuxuu la yaaban yahay sababta lagu weerarayo ee sidaasoo dhan loogula dhaqmayo. Arooriye markii gaadho ayaa la aasayaa meydkii shalay dhintay, waxaana la yaabaa waxa aasaya meydkan ninkii nafta dhaafiyey ninkan dhintay, oo ah tuuggii lacagta ka xaday iyo dahabkiisii. In yar kadib aasidda meydkan, quraan ayaa soo cararaysa gelaysana xabaashii uu ninku ku aasnaa. Arooryadii dambe waxaa la bilaabayaa in la jarjaro geedihii beeroolaha si loogu daldalo oo xukunka loogu fuliyo.
ninkii beeroolaha ahaa oo ka murugoonaya tacabka uu geliyey beerahan iyo sida loo jarjarayo loona diyaarinayo sidii loogu dili lahaa isaga. inta lagu wada jeedo looxan ayaa ay gabadhan majarafad ay sidatay u dhiibaysaa ninkan ku xidhan xabsiga ee beeroolaha. kadib ninkan wuu ka baxsanayaa xabsiga. ugu dambeyn ninkii wuxuu ku guulaysanayaa inuu yimaado dabadii xabsiga, balse ninkan kale ee ku hadhay xabsigu isagoo ah nin muddo dheer ku jira xabsiga, halka uu ka faa'iidaysan lahaa godkan qadan oo uu ka baxsan lahaa ayaa uu isugu yeedhayaa dadkii. kadib ninkani inana waa nin badbaado u socdee waxa uu korayaa jiingadda sare ee guryaha, halkaasi ayuuna kaga dhuumanayaa ilaa intay ka gaadhiso fiidka amba habeenka. wuxuu wakhtigu iskuraba habeennimadii ayay gaadhaysaa. dadkii oo dhanina way kala tegayaan ilaa iyo islaantii mooyaane. habeennimadii ninkii tuugga ahaa oo soo jeeda oo dahabkiisii ku ciyaarayo faraxsan ayaa wuxuu maqlayaa shanqadh ka yeedhmatay halka sare. ninkan tuuggii halka sare ayaa uu soo korayaa si uu hubiyo xaaladda ka jirta, balse wuxuu arkayaa ninkii beeroola ahaa. waxaanuu isku dayayaa in uu miyaaradda ka saaro oo uu ka turo meesha si uu u dhinto, balse gabadhan yar ayaa is odhanaysa badbaadi, waa uunu iska tuurayaa. kadib ninkana feedh ayaa uu ka jarayaa ninkan tuugga isagoo welibana miyaaraddii sita, kadibna waa uu dhacayaa. dembiga iyo dhaca uu geystay ninkani 2 cishoon kadib ayaa uu isna dhintay. intaasi kadib gabadhan ayaa hagaysa ninkan. intaasi kadib guriga ayay ka soo degayaa waanay baxsanayaan ilaa inta ka fogaanayaan meeshan. islaantiina waa ay hurday oo waxba may arkaynba. kadib qudhaan aad u tiro badan ayaa ka soo baxaysa godkeedii oo cunaysa meydka ninkii dhintay. aroornimadii ayay dadkii soo kala hayan si ay u indha-indheeyaan ninkii, balse waxay arkayaan lafa bili-aadan oo ay miyaaradna ag taallo, waxayna u qaadanayaan inuu meydkan yahay ninkii beeroola ahaa. balse dadkii looxaantii ay qalabeeyeen ay hagaajiyeen ayaa ay dib u kala furfurayaan oo ay isaga tegayaan. intaas kadib tuuladu sideedii ayay kusoo noqonaysaa. ninkii baadarigaa sidiisii ayuu khamriga u cabbayaa, gabadhii shaqaale ahaydna sidii ayuunbay tufaaxa u xadaysaa. dadkiina sidii unbay isku eegeegayaa oo xumaanahoogu maayaan xumaanaha dadka kale ayuu muuqdaan. labadii qof ee isla baxsadayna tuuladii ayaa ay meel dheer ka soo eegayaan, balse ayaguba waa dembiilayaan oo waxbay shirqoolanay khiyaameeyeen. muuqaalkana wuxuu ku dhammaanayaa quraanjo sii gelaysa godkeedii. inkastoo uu yahay filimku mid kooban, haddana wuxuu ku fadhiyaa xikmad aad u ballaadhan. intaasi ayaa uu ku soo eegyahay muuqaalkeena maanta. haylowin inaad muuqaalka like saarto, subscribe-na saar oo kusoo biir Falaax Tube. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.